war degdega sacbi la soo dhawaada meel kasta oo joogtiin muuqaalkan hadduu ku soo gaaro si faafi isla markaasina gaarsiiyo qof kasta oo aad awoodi war degdeg ah oo hadda soo dhacay ayaan idin wadaa kaas oo ku saabsan kiiska walaasheen anfac oo qof kasta oo Soomaali ah fariir iyo yaab ku riday isla markaasina ka ilmaysiiyay walaasheen anfac oo tacadi ka dhanaa bini'aadantinimada loogu geystay magaalada Nairobi isla markaasina ay geysteen rag markaas sheeganaya in ay Soomaali yihiin ayaa waxaa si degdeg ah uga hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas oo ku soo celceliyay in uu ka xun yahay dhibaatada loo geystay anfac sidoo kalena ay u baahan tahay si degdeg ah in ay ku hesho cadaalad wuxuu madaxweynaha Mareykanka sheegay in qof kasta oo dambiile ah uu ku noolaan doonin wadanka Mareykanka taasoo muujinayso in madaxweynaha uu helay xog ku saabsan shakiga ku gadaama Roberto Calasow oo ahaa ninkii hore u qabay isla markaasina Soomaalidu ay ku tuumaysay inuu ka dambeeyay dhibaatada loo geystay gabadha miskiinta ah ee anfaca qof kasta oo daawaday clipka gabadhaasi laga soo duubay iyo tacadiga ka dhanka bini'aadantinimada iyo farxumaynta loogu geystay magaalada Nairobi wuu dareemi karaa xanuunka ay leedahay dhibaatada gabadhaasi ay soo martay warkani wuxuu farxad gelinayaa qof kasta oo u istaagay isla markaasina muujiyay damiirkiisa bini'aadantinimo iyo Soomaalinimo oo garab maantaytu u noqday gabadhaasi miskiinta ah waxayna fududeynaysaa haddii Roberto Calasow ay dowladda Mareykanka gacanta ku soo dhigto in ay fududaato soo qabashada raggii ka dambeeyay ficilka kufsiga ah ee wadareedka gabadha loogu geystay magaalada Nairobi tani waxay farxad gelinaysaa qof kasta oo Soomaali ah isla markaasina u istaagay gabadhan sidii ay ku heli lahayd cadaalad waxaana soo ifbaxaysa in markaasi dhibaatada loo geystay gabadhan ee dulmiga ah ay u banaanka imaan doono waxaan sugaynaa sida loo soo qaban doono Roberto Calasow maxkamadna loo soo taagi doono si markaasi ay u fududaato kiiska walaasheen anfac oo lagu tuumayo isaga bal waxaan wax yar daawan doonaa madaxweynaha Mareykanka qaabka uu uga falceliyay iyo sida uu uga hadlay isla markaasina uu tilmaamay qof maaragtay dambiile ah inuu ku noolaan doonin wadanka Mareykanka clipkan ila daawada. Listen, justice for Anfac. My heart goes to that strong Somali woman in Kenya. What happened to Anfac is unimaginably horrible. It is unacceptable by any standards. I believe the accused is a resident of the United States of America. Yes, right here. And we'll make sure swift justice is applied. sidoo kale kiiskan halkaas kuma ekaanin ee wuxuu gaaray dadyo ajaanib ah oo kaleeto kuwaas oo public figure ah oo dad far badan ay ku xiran yihiin sida wariyaal dad caan ah siyaasiyiin iyo dadyo kala duwan ayaa soo qaatay muuqaalka gabadha anfaca. She needs justice after the horrific things that happened to her. So this girl, in fact, recently went viral for the absolute worst reason I could possibly imagine. You see, there's a video of her that got posted to Snap. In this video, there are men doing horrific things to her that I can't repeat on here, but SA and stabbing were involved in those things being done to her. Now, what happened to her on this video is not random. There is a backstory to it. You see, there was a man that in fact met that she fell in love with. She dated him for a bit, then eventually he asked her to marry him and she said yes. Now, in fact, the Somali community is in uproar, shocked. Yet another case of gender-based violence. Yet another man who is misogynistic, sadistic at his core, thinks it's justifiable that he takes revenge, tortures, blackmails, humiliates a woman, his ex-wife.